سليم التاجن سويتشلان سودو طريق لا استا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الهي باول عدك سكو الهي كبقو waxaa jidha halkan waa Puntland weey dawladda Puntland waxay leedahay qiim iyo sharaf iyo dawladnimo iyo hanaan waxay leedahay dad u soo dhintay oo u soo dhaawacmay oo u taagnaa dal kasta dadkiisa dhista wiilal yar yar ah oo markooda horeba nolosha ka dhacay shaqooyinkii loo idmayna ku guuleysan waayay sidii loogu talagalay inuu qabtaan u qaban kari waayay baa waxay sameynayaan inta dad soo gacan mariyaan soo ururiyaan bay waxay raaceen corruption tan la su'aadaan magaalada mandate waxa uu haysta waa inag shaqadana anaga mandate u haysana cidii rabtayna xasan u shaqeyso xasan sheekh maxamed ha aado cid gacmaha ma haysto ciidanimada Soomaaliyeed waxa lagu galaa nin ikhtiyaarkiisa ninkii galaya oo ka qayb noqonaya ha aado cid ma haysto laakiin tan shaqadeeda iyo waajibaadkeeda iyo qorsheeda anaga iska ula taagan yay tahay marka cidda laga dulboodi ka dhax oo dalka yaga iyo dadka yaga corruption iyo daras doon waan intaan dadka xurmaynana oo xaq dhowran oo aan leenahay waajibaadka shaqadiina gudta ummadana soo dhaweey waxa weeye waxay gaadhay heer waxa la soo gaaray inta qoriyo soo qaato suuq in la soo dhexmaro magaalada tan ka koor shaqada anaga qabsanay wax faraha la soo gali kara oo ama ku soo xadgudbi kara ma jiraan waxaan u sheegin cid allaalay cidii dhaqaxooyinka noocaas oo kale ku hawlan waxaan leenahay ka iska daay ka waantooba dhubuq hore dhabahays dambe bay leedahay nafta aan leedina ku khamaarnina been haysu sheeginina dalkanu qiim iyo sharaf buu leeyahay ma dheedkana oo haysan hadda ka shaqeyn wax dhawr saakira ma jiraan wax khalkhal gali kara ma jiraan tan khalkhal ka dhacmayo hadii corruption iyo darar la isku dayo waxaanu shacabka iyo dadweynaha u sheegaynaa iyo ummadda reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug magaalada Galkacyo waxa badan ka soconayso daqiiqada gudahood baa lagu kala baxayaa hadii darar la isla yimaado cidii u baahan in xasan u shaqeyso ama u roondayso oo jeel u qabta ha tagto xaraad kaba hortaagin ilaa xaduudkaana la galmudug ilaa raas casayr Puntland baa ka shaqeysa maamulkeeda ama awurteeda leh orgaanateeda dhiibaya shaqadooda ciidamada loo idmaday ciidamada federaalka wax ka qaatay waa jiraan haday dadka wax galaan aysan meeyay laakiin ninkii been naftiisa u sheega cidna istusaya adeer meesha istusla ka socon mayso ma suurgali karo ma ka socon kardo ninka naga dheer naga buud meesha tan shaqo iyo qiim iyo sharaf aan ku haynaa dadweynaha iyo bulshada loo shaqeeyo ciidanka meesha taagan waa ciidankii shaqada qaban jiray hadii loo baahdo waxaan ku haynaa kuwa dabaabadaas oo hubka culus wata wax naga badbaadiyo wax naga figay midna ma jiraan waxay wataan waa kala wareegay laakiin hadhow waxay noqon doontaa waa sokeeye iyo waa ehel iyo waa gacal iyo waa walaal isaan moodibay haddii taasay tahay la ogaado hal lagu taxadaro in qof walba shaqada uu leeyahay waa aqoonsado meesha laga xukun inuu aado warkaas intaas ku dhamaanaya magaalada waajibaad iyo shaqo ka qabanayna ورديار موتي يا مقالة هالتان وحول دراسة صلاة كعام ديار موتي واجب كل شغلة قوتان ديار موتي بوليست ميل والبا عبر كمرنا نقبل كمرنا خلخل دراسة المقالة هذه أضوء 60 شقوا عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.